sidii hore loo sheegay biyuhu waa asaaska nolosha. haddaan meeshu biyo yeelan wax kale oo laga qaban karaa ma jiraan. dadkii marka asaaskaas nolosha sameeyey oo waqtigooda iyo lacagtooda geliyey waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu ajar adduunyo mid aakhiraba siiyo, xoolahoodana barakeeyo, carruurtoodaba. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guddigii ceelka oo aad isuga howlay iyo maareeyaha wakaaladda biyaha oo ballanqaadkii dawladdu lahayd isagu u qaaday bulshada halkan isku tashiga ku dhisatay oo ceelka iyagu markay qodaan qalabayntiisii iyo soolarkiisii iyo bamkiisii iyo biyogelintiisii iyo magaalada ballaarinteedii mas-uuliyaddeeda qaaday. aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinaynaa. ceelkan biyihiisu haddii la qodo dadka qoday hawsha unbay dheer yihiin, waxay ka dhexeeyaan makhluuqa waddanka deggan, shimbiro iyo dadba. dadka Soomaaliyeedna waa ka dhexeeyaan. waxaa la rabaa bulshada deegaanka deggan in ay nabadda ka shaqayso. markay biyaha helaan oo xoolo daaqsintooda ay helaan, dariskooda nabad baa laga rabaa inay kula noolaadaan. ceelkan in la wada cabo dadka ay ogolaadaan baa laga rabaa. dariska markaan leeyahay xuduuddan waxaa darisku wada ah Puntland iyo Galmudug, waa isaga dhow xoolahoodu wada daaqaan. labaduba inay wada cabbaan oo ay soo dhoweeyaan oo walaalo ahaadaan oo geela kala socdaan baa ceelkan iyo magaaladaani waa magaalo ku noqon kartaa. haddii colaadi jirto ceelkuna ceel noqon mayo, magaaladuna magaalaysi mayso. qof kasta waxaa la rabaa inuu isagu colaadda maskaxdiisa ka saaro, afkiisa iyo gacantiisana laga nabad galo. waxaa dhici karta in dadka qaar ka fakaraan see nabad loo helayaado dadkii intaa kale deganaa isu dhex marayaan. qof kasta isagu waxaa la rabaa inuu isagu qalbigiisana ka saaro colaadda, gacantiisa iyo afkiisana uu laga nabad galo. dadka muslimiintaana saasaa laga rabaa. dadka waddanka degan waa dad wada dhashay oo muslimiina. hal cadow bay leeyihiin, halkaa cadow biyaha wax kuma leh. inuu cag soo dhigana lama rabo. waa cadowga argagixisada. argagixisa ceelkan biyihiisa baysteen kuma leh, ma cabbi karto, xaaraan bay ka tahay. waxaa ka xaaraantinimeeyey shareecada islaamka. argagixisa dadkay ka dhasheen markii hore, laakiin waa fallaagoobeen. qaacido waxaa jirta leeyahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuquba bixirmaanihi. waxaad xaq u leh haddaad ka degdegto waxaa lagu ciqaaba in lagaa xaaraantinimeeyo. example waxaa loo soo qaatay haddaad aabbaha disho dhaxalkiisu waa kaa xaaraan. argagixisay Soomaali ma aha. qofka argagixiso gala ceelkaana kama cabbi karo, deegaankana ma iman karo. dadka deegaankuna inay il dheer ku hayaan baa la rabaa. ciidankii dawladduna waaba degan yahay oo Samansabdho baysaska ciidamada ay degan yihiin bay ku jirtaa. dadka Soomaalida oo dariska ah waxaa la rabaa inay walaalo ahaadaan. dadkan ceelkan maanta qodaya waxaa laga rabaa inay noqdaan number 1 nabadda mudug inay u noqdaan. waa colaad mudug ayaan jirin oo qabiil colaad geel la kala dhacayan jirin. ay qof waliba uu maskaxdiisa geliyo in colaaddii qabiilku dhammaatay oo horumar loo socdo. halka cadowga jiran uu yahay argagixisadu hadda waqtigoodii gabalkoodii sii dhacayo, rafashadoodii aanu kor taagannahay. aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa guddigii iyo dadkii halkan ka shaqeeyey. akhyaartii qoday xoolahooda gelisana waxaa
Laga hayaamiyo yeelaan jidmariniyo ay jaqa jugliyadays maxaan keligay jeesanay laga hayaamiyo yeelaan jidmariniyo sidii hore loo sheegay biyuhu waa asaaska nolosha haddaan meeshu biyo yeelan wax kale oo laga qaban karaa ma jiraan dadkii marka asaaskaas nolosha sameeyey oo wakhtigooda iyo lacagtooda geliyey waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu ajar adduuniya mid aakharaba siiyo xoolahoodana barakeeyo carruurtoodaba waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guddigii ceelka oo aad isuga howlay iyo maareeyaha wakaaladda biyaha oo ballanqaadkii dawladdu lahayd isagu u qaaday bulshada halkan isku tashiga ku dhisatay oo ceelka iyagu markay qodaan qalabayntiisii iyo soolarkiisii iyo bamkiisii iyo biyogelintiisii iyo magaalada ballaarinteedii mas-uuliyaddeeda qaaday aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinaynaa ceelkan biyihiisu haddii la qodo dadka qoday hawsha unbay dheer yihiin waxay ka dhexeeyaan makhluuqa waddanka deggan shimbiro iyo dadba dadka soomaaliyeedna waa ka dhexeeyaan waxaa la rabaa bulshada deegaanka deggan in ay nabadda ka shaqayso markay biyaha helaan oo xoolo daaqsintooda ay helaan dariskooda nabad baa laga rabaa inay kula noolaadaan ceelkan in la wada cabo dadka ay oggolaadaan baa laga rabaa dariska markaan leeyahay xuduuddan waxaa darisku wada ah puntland iyo galmudug baa isaga dhowa xoolahoodu wada daaqaan labaduba inay wada cabbaan oo ay soo dhoweeyaan oo walaalo ahaadaan oo geela kala socdaan baa ceelkan iyo magaaladaani waa magaalo ku noqon kartaa haddii colaadi jirto ceelkuna ceel noqon mayo magaaladuna magaalaysi mayso qof kastaa waxaa la rabaa inuu isagu colaadda maskaxdiisa ka saaro afkiisa iyo gacantiisana laga nabadgalo waxaa dhici karta in dadka qaarkii fakaraan see nabad loo helayaado dadkii intaa kale deganaa isu dhex marayaan qof kastaa isagu waxaa la rabaa inuu isagu qalbigiisana ka saaro colaadda gacantiisa iyo afkiisana uu laga nabadgalo dadka muslimiintaana saasaa laga rabaa dadka waddanka degan waa dad wada dhashay oo muslimiina hal cadow bay leeyihiin halkaa cadow biyaha wax kuma leh inuu cag soo dhigana lama rabo waa cadowga argagixisada argagixisa ceelkan biyihiisa baysteen kuma leh ma cabbi karto xaaraan bay ka tahay waxaa ka xaaraantinimeeyey shareecada islaamka argagixisa dadkay ka dhasheen markii hore laakiin waa fallaagoobeen qaacido waxaa jirta man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuquba bixirmaanihi waxaad xaq u leh haddaad ka degdegto waxaa lagu ciqaaba in lagaa xaaraantinimeeyo example waxaa loo soo qaatay haddaad aabbahaa disho dhaxalkiisu waa kaa xaaraan argagixisay soomaali ma aha qofka argagixiso gale ceelkaana kama cabbi karo deegaankana ma iman karo dadka deegaankuna inay ildheer ku hayaan baa la rabaa ciidankii dawladduna waaba degan yaho somansabdho baysaska ciidamada ay degan yihiin bay ku jirtaa dadka soomaalida oo dariska aan waxaa la rabaa inay walaalo ahaadaan dadkan ceelkan maanta qodaya waxaa laga rabaa inay noqdaan number 1 nabadda mudug inay u noqdaan waa colaad mudug ayan jirin oo qabiil colaad geel la kala dhacayan jirin ay qof waliba oo maskaxdiisa geliyo in colaaddii qabiilku dhammaatay oo horumar loo socdo halka cadowga jiran uu yahay argagixisadu hadda wakhtigoodii gabalkoodii sii dhacayo rafashadoodii aanu kor taagannahay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa guddigii iyo dadkii halkan ka shaqeeyey akhyaartii qoday xoolahooda